بسم الله الرحمن الرحيم. برنامجka MS Excel waxa weeyaan barnaamij aad iyo aad loo isticmaalo. waa barnaamijyada loogu isticmaal badan yahay oo wax qabad wanaagsan markay noqoto inaad ka shaqeyso xafiis kasta oo maanta laga shaqeeyo haddii uu noqdo xafiis shirkad yar iyo mid weynba hay'ad iyo wasaaradba dhammaan way u baahan yihiin barnaamijka MS Excel haddii ay kugu jirto hami ama han inaad ka shaqeyso xafiis ama nidaam noocaas oo kale inaad u shaqeyso mustaqbalka ama haddaba aad ku shaqeynayso in xirfad dheer oo duruqsan aad u leedahay isticmaalka barnaamijkan aad bay wax uga bedelaysaa shaqadaada iyo xitaa inaad shaqo hesho qayb weyn ku yeelanaysa haddii aad aqoon u leedahay barnaamijkan iyo isticmaalkiisa. Marka waxaan halkan ka bilaabaynaa qaybtii koowaad ee koorso ku saabsan bilowga ama asaaska isticmaalka barnaamijkan MS Excel. qaybtiisii koowaad ayaan halkan ka bilaabaynaa. markay dhammaato koorsadaas insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in fahan buuxa iyo aragti buuxda aad yeelato oo ku saabsan isticmaalka barnaamijkan. haddana horaan u gelayaa waxaan ka bilaabaynaa barnaamijka qaabka loo soo furto. computerkaaga markaad sida uu kugu furan yahay hadda sidan oo kale uu kugu furan yahay aniga waxaan isticmaalayaa hadda desktop ama laptop aad isticmaal kartaa ama desktop aad isticmaal kartaa hadba noocaad adigu haysato. markaad soo furanayso barnaamijka waxaa loo soo furtaa dhammaan sida noocyada kaleete asaga lamida barnaamijyada kaleete asaga lamida loo soo furto sida Word oo kale sida PowerPoint oo kale sida Access oo kale waa isku wadamad guud ahaan. marka waxaad tegaysaa halkan meeshan ay ku qoran tahay Start button. markaad qalin sida u saarto Start uu soo qoraya. marka Office button waa la dhahaa Start button waa la dhahaa. marka adiga halkaas aad tuujinaysaa. marka sida u tuujiyo Excel intaan ka fiirinaya marka shaashadan ii soo baxaysan ka fiirinaa meel Excel ay ku qoran tahay. halka waa arkaa Access Excelna waa kana halkaas ka muuqanaya. hadduu ku muuqani waayo oo halkan kaaga muuqan waayo goobta halkan hadda aad taagantaa ku qoraysaa Excel iyadoo qalin sida ugu saara Excel ku qoraysaa halkaas. kaad Excel ku qorto waa ka wuxuu noqonayaa best match kaaga soo baxa highlight ku sii saaraya waa diyaar waa kana uu kuleeyahay. marka halkaas ka sii furan kartaa haddii uu ku muuqdo asagaas maad marka ku dhufanaysa. markaad ku dhufato ood qaabkan u soo furato Excel wuxuu kugu soo dhaweynayaa shaashadan oo loo yaqaano start screen. tilaabooyin kale ayaad halkaa ka sii qaadi kartaa haddii aad rabto marka inaad wax ku qorato oo goobtii wax lagu qoranayo Excel inaad tagto aad rabto halkan ay ku qoranta blank workbook ayaa tuujinaysaa. blank workbook waxaa laga wadaa book faaruq ah ama book faaruq ah oo waxba ku qornayn. waxay ku tusinayaan kan hadda home noo saaran yahay eeg halaa saaran fiiri home kaas noo saaran yahay. marka halka inaan ka sii duruqnaa dar new gan taabanaya. workbook waa kana marka blank workbook waa kana halkan aan ku sii dhufanaa ka sii soconaya. marka tana hadda tuujinaya kan tuujiyo ka waxay keenaysaa shaashadii Excel wax aan ku qoran lahaa ay keenaysaa halkana wax lagu qortaa. marka tan waan u soo laabanaynaa. marka haddana waxaan eegaynaa qaabka mutaqaanaa loogu soo furto qaab kale nidaam kale loogu soo furto oo laga yaabo inuu kan ka fudud yahay. marka tan waan ka baxaya waxaan uga baxaya halkaas aan qalinka saaranaya waxaan leeyahay halka aman close leeyahay oo ku dhufanaya on mouse-kaygan ku tuujinaya bis. qaabka kale loo soo furan karo waxa weeyaan shaashada korkeeda waxaad leedahay right click waxa waaye mouse-kaaga haddii aad isticmaalayso mouse dhinaca midigta tuujinaysaa. haddii aad isticmaalayso laptop ama touchpad aad isticmaalayso dhinaca midigta tuujinaysaa. touchpad dhinaciisa midigta tuujinaysaa. marka waxaa leedahay markay sidan kugu furmato boxkan yar uu sidaa kugu furmo intaad right click dhahdo uu sidaa kugu furmo halkan aad u imaanaysaa new ay ku qoran tahay. sidaasaa ula raacaysaa mar qalinka kadib halkan aad ka raadinaysaa dhammaan office applicationada office oo dhan halkan kaaga muuqanaya. halkan Access waa kana Access database bitmap image Microsoft Word document waa kana Word ki weeyaan. Access waa kana hadana Microsoft PowerPoint waa kana waa dhammaantood qaabkana loo wada furan karaa. publisher waa kana markaan midkaan rabo waa kana Microsoft Excel aan rabaa Microsoft Excel aan ku dhufanaya. haddayna waa taa idin sheegay dhammaan barnaamijyada kaleete asaga isku bahda yihiin noocana dhammaantood loo soo wada furtaa. that's why ay halkan uga wada muuqdaan. marka halkan aan tuujinaya. markaan tuujiyo marka waxaan ii sameynaya kan ii soo saaraya waan ku celinayaa eeg waxaan leeyahay halka intaan imaanaya markaan sidaa u tuujiyo qaabkan uu noqonaya wixii aan furay meeshana highlight ay noqonaysa.
ahmiyadda ay leedahay markaad qaabkan u furato waxa weeyaan documentigii wuu ku save garanaysaa wuu ku keedini meel kugu keenay documentigan halkan uu ku saarnaana waa kana halkan ku saarantaa documentigaagi xagana wuxuu ku leeyahay magacaad rabto u baxso hadda wuxuu leeyahay new Microsoft Excel worksheet waa bog cusub oo Microsoft Excel adoo magac u baxso xitaa fiiri halkan qalin had baa saaran halka saaran waxa hadda qoraal ku bilaabo oo aan ku qoro tusaale ahaan list waka magacan uu iigu keedinaya hadaan enter dhaho ka qaabkaas uu iigu keedinaya marka ahmiyadda ay leedahay waxa waaye nidaamkan markaad u furato failkii uu ku keedinaya adoo keedinin uu ku keedinaya ku save garanaya oo saving iyo keedinta waxay tahay waan baran doonaa arki doonaa ahmiyadda ay leedahay kadib magacaad oo la bixi kartaa isla markaa tan kale waxa weeyaan haddii hadda aan rabo inaan meeshii toos u tago oo qoraalka ahayd double click aan dhahaa laba jeer aan mooskayga tuujina oo degdeg ah waka way keenaya marka waka mid kama taqaanaa ku roon adaa garanayo laakiin labadaas qaab ugu muhiimsan qaabka loo soo furo qaabka saddexaad aan arkaynaa marka haddana waxaan arkaynaa qaabka saddexaad oo loo soo furto laakiin intaan qaabkaas gaarin waxaan rabnaa waxa sabab ka dhigay in qaabkaas suurtagal ay noqotaan horta arkaynaa waxa waaye markaad soo furanayso markaad sida halka u taabato Excel halkan uu kaaga soo baxo mararka qaar maalin kasta meeshan inaad ku noqoto way ku dhibaysaa xogaa halaga inay dib noqoto la ku dhufato waxa ku roono ka fiican oo ka shaqo fudud in kuwan oo kale meeshan aad ugu soo dejisato halkan aad u keensato oo mar walba aad furanayso halka uun aad hore ka tuujiso hada fiiri kan oo kale intuu ku jira laakiin kama dhex raadinaya halkan ka furanaya kan oo kale halka uu ku jira laakiin halkan uu saaran yahay halkan iyaga fudud marka sidoo kale hadii aan rabo inaan ka dhigto waxaan sameeynaa halkan aan furayaa Excel aan u imaanayaa kadib waxaan leeyahay right click markaan dhaho oo mouse-kayga dhinaca midigta aan tuujiyo qaabkaas aan u soconayaa sidaas aan kor ugu soconayaa waxaan imaanayaa mo markaan imaado kana ii furmaayo fiiri ka midig jira ii furmaayo eeg markaan qalin sidaa u saaro tana ii soo furmayso dhinaceedan soo raacayaa halkan ay ku qoran tahay pin to taskbar aan tuujinayaa eeg markaan tuujiyo waxa halkan waxa ka dhici doona eeg aan tuujinayaa un pin to taskbar dag waka Excel halkan uu soo galaya loogadiisi halka iiga muuqanayso bas marka tan waa shaqo fududeys marka hadhow halkan ma aadaysid mar walba halkan laad ku dhufanaysaa haddii aad rabto inaad furato halkan ma dag double click leedahay ama hal mar la ku dhufan waa kana diyaar waaye halkaasan ka sii galaya waa kana halkan waa joogaaba marka qaabkaas waa loo fududeystaa waana loo soo furtaa Excel-ka ama barnaamijyada kale oo idil boo la midka ah Excel